وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 24 bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Kenya oo dacwad ka dhana kiiska ICJ ee badda u gudbisay midowga Afrika xaflad aroos oo ka socotay magaalada Muqdisho isku bedeshay meel muruga iyo waliba dhiig uu ka qubanayo Djibouti oo heshay ballanqaad culus oo ay kursiga qaramada midowga ugu guuleysan karto Kenya loolanka Sacuudiga iyo Qatar ee Soomaaliya aqoonsiga baasaboorka Somaliland iyo jawaabta dawladda Qatar ahlu sunna oo xukun ku fulisay rag kufsi ka geystay gobolka Galgaduud iyo Soomaaliya oo diiday codsi uga yimid midowga Afrika oo ku saabsan kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan dawladda Kenya ayaa dacwad ka dhana kiiska ICJ ee badda u gudbisay midowga Afrika iyadoo ay soo dhawdahay waqtiga maxkamadda cadaaladda adduunka dib u bilaabaysa dhageysiga dacwadda badda dawladda Kenya ayaa qaraar siisay qorshaheeda ka dhanka ah ICJ xukuumadda Nairobi ayaa la sheegay in dawladaheeda cusub oo ah mid diblomaasiyadeed uu yahay isku day ay ku rabtay inay ku baajiso in xeerbeegtada UN-ka ay xukunka madambaysa ay ku rido kiiskan aadka u culus dawladda Soomaaliya oo dacwadda gudbisay 24 Agoosto sanadkii 2014 ayaa hoos dhigtay dalabyo dhowr ah oo ku aadan in wada hadal ka gasho qadiyadan waxaana ay ku adkeysatay inay ka dhowr sugayso go'aanka ICJ Kenya ayaa qoraal ay u dirtay ururka midowga Afrika waxay ku dooday in kiiskan uu yahay mid si qoto dheer u saameynaya amniga gobolka dagaalka al-shabaab iyo joogitaanka ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka Amazon ayaa dalka la xeebta ugu dheer Afrika loo daabulay sanadkii 2007 halka Kenya ay dib ugu soo biirtay 2011 walow aysan guulo muuqda ka soo hoynin qulufka loogu soo horjeedo xogaga xiriirka la leh Al-Qaacida dhinaca kalena Kenya oo ku hungowday tallaabooyin hore oo ay cadaadis ku saarayso xukuumadda Muqdisho ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhawaaqay fadwo ku aadan gal dacwadeedka badda hase ahaatee inta ilaa iyo haatan la xasuusan yahay marka kaliya ee uu baarlamaanka Soomaaliya soo qaaday dacwadda oo ahayd November 2009 waxay mooshin ku buriyeen is-afgaradka dhalanteedka ah iyadoo cod siinaysa xeerka AU-da Kenya ayaa ururkan ka codsaday inuu u kala garqaado labada dhinac xilli ay dawladda federaalka ku eedeysay inay diiday wada xaajood ay ka gashay kiiskan ICJ oo xukunkeeda uu noqon doono mid ay qasab tahay in la fuliyo isla markaana aanan racfaan laga qaadan karin ayaa dhageysiga galka dib u bilaabista bisha December waxaana kadib ay soo saaraysaa go'aanka ugu dambeeya dhinaca kalena xaflad aroos oo ka socotay magaalada Muqdisho ayaa isku bedeshay meel muruga iyo waliba uu dhiig ka qubanayo iyadoo lagu guda jira jawi farxadeed oo aroos ah isla markaana caruuska iyo caroosada ay ku sugan yihiin guri ku yaala xaafadda Boondheer ee magaalada Muqdisho ayaa jawigii arooska waxa uu isku bedelay xaalad muruga ah kadib markii dhismihii uu soo dumay xalay dhismaha guriga dumay ayaa waxa uu ahay guri qadiimi oo ay leedahay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya balse dad shacab dan yar ay deganaayeen suuse raagacada oo eedo ah wiilka arooska ayaa sheegtay iyadoo xaaladda ay tahay jawi farxadeed mar kaliya uu soo dumay guriga waxaana ay sheegtay sababta guriga uu soo dumay inay tahay kadib markii reerka gabadha durbaan ay ku dul ciyaareen dhismaha dabaqa oo sabab u noqday inuu soo dumo guriga wiil aan eedo u ah ayaa gabar gurigan keensaday kadib aroos ayaa halkan loogu dhigay cidda gabadha oo durbaano watay ayaa guriga ku ciyaarayay boodboodkii durbaanada ayaa sabab u noqday inuu dumo guriga anna reerkana wax yar ayaa soo gaaray balse cidda gabadha ayay u badnaayeen dadka dhaawacyada soo gaareen ilaa 22 ruux dad gaaraya oo arooska iyo aroosada ay ku jiraan ayaa dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen ay tiri suusa raage dadka dhaawacyada ay soo gaareen ayaa dhismaha ku dumay waxaana laga soo saaray jaranjaro kadib markii dadka xaafadda gurmad ay u sameeyeen guryaha qaar ee ku yaala Muqdisho dhismahooda ay qadiim yihiin ayaa xiliyada qaar dadka waxa ay kala kulmaan dhibaatooyin adag oo ka soo gaarta kadib markii ay ku soo dumaan guryaha ay ku nool yihiin geesta kalena Djibouti ayaa heshay ballanqaad culus oo ay kursiga qaramada midowga ugu guuleysan karto Kenya war ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka ayaa lagu sheegay in ururka uu Djibouti ka taageerayo ololaha ay ugu jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka OIC ayaa u ballan qaaday dawladda Djibouti inuu garab istaagi doono dadaalka adag ee ugu jirto kursigaas oo ay kula tartamayso dawladda Kenya
sidoo kale ururka ayaa ka codsaday dhammaan wadamada islaamka inay taageero buuxda u fidiyaan Djibouti si ay ugu guuleysato kursigaasi. Dalalka Mareykanka, China, Japan iyo kuwa kale ayaa sidoo kale taageeraya dowladda Djibouti maadaama ay saldhig military ku leeyihiin. Haddii 57 dal ay ku bohoobay ururka iskaashiga islaamka ay garab istaagaan Djibouti, waxa ay kaga adkaan kartaa loolanka ay kula jirto Kenya. Dhowaan ururka Midowga Afrika ayaa Kenya u codeeyay inay kursigaasi ku matasho Afrika, balse Djibouti ayaa ka biyadiiday waxaana ay sheegtay inay u tartami doonto. Labada dal ayaa kursigani ku tartami doona bisha September ee soo socota marka uu furmo shirweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Qatar ay gadaal ka riixayso in baasaboorka Somaliland ay aqoonsato dowladda Sacuudiga. wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in loolanka cusub ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Qatar uu ka bilowday Soomaaliya, iyadoo labada dhinacna ay qaadeen tallaabooyin iska soo horjeeda. wargeyska ayaa qoray in iyadoo Sacuudiga u muuqdo mid aqoonsanaysa Somaliland, ay Qatar dhinaca kale xoojinayso dowladda dhexe ee Muqdisho ay xulufo yihiin. Sacuudiga ayaa dhowaan casuumaad madaxweyne oo rasmi ah u fidiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay xajkii sanadkan yeeshe waxaa la yaab lahaa baasaboorka uu ku safray sida wargeysku uu qoray. Daily Sabah ayaa sheegay in Sacuudigu ogolaaday in Muuse Biixi uu adeegsado baasaboorka Somaliland bedelka baasaboorka Soomaaliga. Tallaabadan ayaa sii xumeysay xiriirka markii horeba aan cagaha badan ku taagneen ee dowladda Muqdisho iyo Riyadh. tallaabada Sacuudiga ayaa dirtay fariin ah in Sacuudiga qorsheynayo inuu Somaliland u aqoonsado dal ahaan. Qatar ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xoojinayso dowladda dhexe ee Soomaaliya ee loolanka uu kala dhaxeeyo Somaliland, iyada oo shaaca ka qaaday qorshe ay ku dhisayso dekedda muhiimka ee Hobyo. Hobyo ayaa waxay ku tala goob muhiim ah waxaana ay u dhowdahay marinka Baabal Maqdam oo ah mid ka mid ah baraha la isaga gudbo ee badaha caalamka, taasoo dekedda Hobyo u furaysa suuqyo caalami ah. geesta kalena ahlu sunna ayaa xukun ku fulisay rag la sheegay inay kufsi geysteen. kooxda ahlu sunna wal jameeca ayaa maanta xukun fulisay 2 nin oo horey kufsi ugu geysay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. ugu horeyn xubnaha garsoorka ahlu sunna ayaa akhriyay xukunka dhalinyaradan oo loo xiray kufsi Guraceel ka dhacay dhowr bilood ka hor, waxaana markaa kadib dadka hortooda la keenay maxaabiis oo jeedaleen xubno booliiska ahlu sunna ka tirsan. ahlu sunna ayaa saakid dadweynaha magaalada ku wargelisay inay yimaadaan barxadda magaalada si ay u daawadaan xukunka lagu riday 2 ruux ee loo heshay kufsiga ka dhacay Guraceel. fagaara ku yaala Dhuusamareeb ay ku sugnaayeen dadweyne fara badan ayaa ugu dambeyn raggaasi lagula dhuftay min 100 jeedal. sidoo kale waxaa goobta xukunka ka dhacay ku sugnaa ciidamo ka tirsan booliiska Galmudug oo sugaya ammaanka. Soomaaliya ayaa diiday codsi uga yimid Midowga Afrika oo ku saabsan kiiska badda ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa ka biyadiiday ka qaybgalka kulan isxog waraysi oo ku aadan kiiska badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya, kaas uu soo qaban qaabiyay guddi ka mid ah ururka Midowga Afrika. casuumaad toos ah oo Soomaaliya uga timid ururka ayaa waxaa ku gacan seeray xukuumadda federaalka sida ay ogaatay warbaahinta. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal ku taariikhaysnaa 21 bishan ku sheegtay inaysan ka qaybgali karin shirkaasi, isla markaana dacwadda labada wadan ay hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. sidoo kale wasaaradda ayaa shaacisay inaysan geli doonin wax gorgortan ah, isla markaana ay ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda. dowladda Kenya ayaa horey ugu guuldareysatay tallaabooyin ka dhan ah Soomaaliya oo ay qaaday si ay cadaadis ugu saarto inay ka laabato kiiskaasi. ICJ ayaa la filayaa inay dib u furto dhageysiga dacwadda labada dal dhamaadka sanadka 2019. fadhiga maxkamadda ayaana ka qabsoomi doona guriga nabadda ee Netherlands 9 ilaa 23 bisha soo socota ee December. ugu dambeyntiina Cumar Finish gudoomiye ku soo dhawow kursi dhiig leh oo dhigaagii hore uga baxay. 22 bishan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xildhibaan Finish u magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho, waxaana arintan siyaabooyin kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed. 22 bishii July waxaa kursigan lagu qarxiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, kaas oo dhaawac ka soo gaaray ugu geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
dadka qaar ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub ee la magacaabay oo kamid ah hogaamiye kooxeedyadii soo maray dalka uusan wax cabsi ah ka qabin kursiga balse ay caqabad ka taagan tahay hanaanka sugidda amnigiisa. Gudoomiye ku soo dhawow kursiga dhiiga waxaana horey loogu qarxiyay gudoomiyihii ka horeeyay ee gobolka Banaadir marka Allaha kula garab galo gobolka amnigiisa uu adag yahay al-shabaabna baylah u ah ayuu yiri mid kamid ah dad badan oo faale ka dhiibtay page-ka Facebook ee Villa Soomaaliya oo lagu soo daabacay magacaabista duqa Muqdisho. Waxaa la aaminsan yahay in la dayacay amniga gudoomiyihii gobolka Banaadir isla markaana ay fadeexad tahay in shakhsi caadi ah oo mas'uul intaasi la eg xasaanadiisa qarax la hortago kadibna isku qarxiyo. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka inuu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.